saddex saac iyo bar aad timaado baarista waxaanu ku ogaanay xilliga falku dhacay inuu ahaa 10kii qiyaasta ugu badan maadaama dadku aysan saacad haysan markaas ama aysan ku baraarugsanayn waa 10kii nus saacaas u dhaxeeyay miya qiyaasta gudoomiye horta ana wax og wixii saaca miya u dhaxeeyay baan ku yiri su'aasha haa iyo maya ma fahmin su'aashaada igu celi waxaad sheegtay inaad 9kii iyo barkii timid guriga sax falkuna wuxuu dhacay 10kii nus saacaas guriga joogtay miya 10kii iyo 20 oo falka dhacay 10kii iyo 20 oo falku dhacay ha okay 40 daqiiqo u dhaxeeyay miya markii 40 u dhaxeeyay ha sida 50 daqiiqo 40 daqiiqo ku meelaas u dhaxeeyay okay shidaalka adiga soo gatay Sooma ha shidaalku benzin buu ahaa Sooma may naftu waxa waxa ugu tala gashay shidaalka soo gaday maxay ahayd waxay ahayd maadaama la dhahay nin asaagayga alaab keentay aan ku aroosa xaaskayna aan alaabteedu waa qaadan intuu nin iga dambeelahay gubay tir inta aan qaada lahayd sidaa darteed aan gubay alaabteedu halka ku jooji alaabteedu ma gubtay waa gubaha qolka aad gubtay ee marxuumada aad ku gubtay ama adigu sidaa sheegayso qolka aad ka bilowday dabka yaa seexan jiray qolkaas qolna siino ahay aniga xaaskayga aan ku nasajirnay inta badan shaqaalaha ila boorka asxaabteeda markuu yimaadaan ay jifa jireen ma jirtaa qolkaasi inuu ahaa qolka gabadha la yiraahdo Farxiyo oo ay u oolaayeen dokumentigeeda waxbarashada bugaagteeda iyo dharkeedu ma jirin hadii jira leen habeenkaasi jifa lahayd mudane ma jirin miya ma jirin qolkaas ma jifato okay gurigu waa 5 qol sax miya ha waa 5 qol sad qolka jiifka iyo fadhigu waa isku go'an yihiin sax miya ha suuli waa leeyahay sax miya ha ilaa hadda wax dabah oo gaaray fadhiga iyo jiifka iyo suuliga gudaha ma jiro Sooma ma jiro taasna waa caday sida ku dhacday su'aalan ku weydiinaya mugtahay qolka banaanka ah ee marxuumadu ha ma joogin laakiin marxuumada markaas ay dagayso okay adiga waxaad ku fikirtay inaad gubtid qolka yar oo banaanka ah 5 qol waxaad ku fikirtay inaad gubtid qolka banaanka ah qolka gudaha ee fadhiga ah qolka jiifka ah qaybta suuliga oo xiran guriga oo dhan inta inaad gubtaa ku fikirtay Sooma kuma fikirin soo adiga banaankana soo gubay gudahana gubay muhiimadeedu waxay ahayd inta alaabta aan keensaday baa gubanayay ee gurigan gubanaa ma sahan okay ma jirtaa inaad baxsatay markii falkan dhacay ha xabsiyaan la baxsaday kuma weydiin waxaad u baxsatay su'aasha aan ku weydiiyay ka jawaab kaliya maxsanta ma jirtaa inaad baxsatay markii falkan dhacay ha ma jirtaa inaad isku aamini weyday gobolka Banaadir ha ma jirtaa in laga soo qabtay galguduud leema soo qaban ehelkayga ana isku keenay laguma soo qaban miya ehelkayga dadkay soo qabtay dad ehelkayga ahayd anana u imaaday adiga si volunteer ku yimi miya xamar ma xamar ma imaan laakiin ehelkayga u imaaday ayaga xamar ay keenay okay Said Ali waxaanu ognahay inaysan guban qolka jiifka iyo qolka fadhiga haddana waxaad sheegtay inaad gubtay qolkii fadhiga iyo qolkii jiifka arrintaasi miyaysan iskhilaafeen ma sheegin inaan qolka jiifka iyo fadhiga ma sheegin been ay sheegin qolka yar aan guba aniga aan ku dhax waa duuban tahay daqiiqad ka hor baan tiri dib baan lagu laaban doonaa ma dhihin halali ma maqal maxkamadu ya ma maqal inuu yiri qolka jiifkan gubay ma dhihin laakiin wuxuu yiri halkaas ka soo bilaabay ka soo baxaan iri kana gubanaa gudoomiye waa duuban tahay waa lagu noqon karaa laakiin waa ka gudbaya markii aad baxsatay xagee martay kulay xafadeeda imaaday sidaan hadda uu sheegay oo xafadii suuqa xoolaha walaashiya imaaday ayadii habeenkii la joogay daawooyin iga marmariday kulay hada qof naxsanna waa ahay oo qof maanta shilkaas dhacay xaaskiisa iyo cunuga u leedahay arintaas ku dhacday waa la dareemi karaa habeenkii ma jiifan walaashii way jiifatay maalintii soo kacday duhurkii iskuuli aaday kadib baa guriga ka soo baxay aniga guri ay ku nooshahay 6 caruur ah oo 10 jir ugu weyn yahay iyo hooyadood
iyo qof kale sidaa sheegtay uu joogay inaad gubtid oo aad intaad shidaal soo qaadid baasiin baan nagu ogaanay laakiin noocu doono ha noqdo aad shidaal intaad ku gubtid isla markaana ay badbaadaan dadka ku jiraay caqliyadaasi ma ogeyd khatarta ka dhalanaysa ma fahmin igu celi su-aashaada qolkan inaad gubtid 5 caruur oo 10 jir 6 caruur oo 10 jir ugu weyn yahay iyo islaan aad qabtid oo xaamilo ah oo ricaayadaada ku jirta inaad intaa ugu gasho inaad dab ku bilbishid iyo gaas iyo shidaal isla markaana ay ka badbaadaan arrintaasi caqliyadaadu ma ogeyd aniga aamus adiga waraa lahaw waaba haa iyo maya ka tiraa lahaw adiga adiga ma ogeyd inay ku badbaadi karin mudanan kaga jawaab su-aashaada aniga qol ilmaha ku jiraan ma gubin qol xaaskayga ku jirtana ma gubin nin maanta la dhahay hadalkaas lagu dhahana waan xanaaqsanay waqtigaas waqti maskaxda joogta ma ahayn qolka aan gubayana cidnana kuma jirin maxay ahayd intii yar alaabtaan gubay qolkeeda iyo qolka ilmaha ku jiraan iyo qolka gubayana jika u dhaxay su-aasheedu waxay tahay sayid cali qol ay ku jiraan 10 caruur ah iyo hooyadood oo xaamilo ah oo adiga raacayadaada ku jirta ina inta dab soo qaadato ku bilbisho dab sugtid natiijada ka dhalanaysa inay khatar tahay ma ogeyd haa iyo maya hadda waxay leedahay qol ay ku jiraan kuma jirin qolka waayo qolka xaaskayga iyo caruurta kuma wada jiraan su-aasha kala u dhig laba jeer ku celisa ma fahmin ku dhahay khatarta ka dhalan karta inaad gubtid gurigaas ama qolka ku jiraan ama deerka ha joogeen aad intaad shidaal ku bilbishid 6 caruur oo 10 jir ugu weyn yahay ay hooyadooda xaamilo ah oo ricaayadaada ku jirta macnaha ricaaya waxaan ka wadaa adiga aad mas'uul ka tahay ay ku jiraan inaad shidaal inta u soo gooto suuqa aado aad ku shubtid ku bilbishid inta ku bilbila ka soo qaadina guriga ku bilbishay khatarta ka dhalan karta adigu ma ogeyd aqliyan kulli ha iyo maya ma ogeyn ha okay shidaalku inuu yahay markii shidaal iyo dab la isku daaro inay yihiin waxyaabaha wax dila oo khatarta ah ma ogeyd waan ogaa laakiin markaas niyadeeda ma joogin okay luul allah u naxariisto ma jirtaa saldhigga aeroboortka ee garoonka diyaaradaha aadan cadde inay kugu dacweysay ma jirto qolka yar sida ay noo sheegeen ehelka iyo caruurtu qolka yar ee gubtay waxa deganeyd farxiyo arrintaas sax miya maya qolka ayaa seexan jiray qolkan xaaskayga martida shaqaalaha elboorka sidoo kale asxaabtida way maato un baa seexan jirtay xaaskaagu xagee bay seexan jirtay xaaskayga intee kaloo seexaleed aniga la seexaleed okay hadda waxaad tiri xaaskayga iyo dadka martida ay ii yimaadaan seexan jiray xaaskayga way ku nisa jirtay laakiin qolkan dadka martida ama asxaabteedu kala markay imaadaan jiifa jireen qolka jiifka iyo fadhiga iyo suuliga isku go'an markaad shaqada aadayso furihiisa adigu ma qaadan jirtay ma qaadan jirin waxaan loo sheegay inaad furaha qaadan jirtay isla markaana adigu markaad timaadid kaliya gali jirtay ayaduna ay seexan jirtay qolka ay ku gubatay waad ku gubtay taas macquul ma noqonaydo waayo nin inaga isqaba nin soo furaha u qaadanaa aniga mideeda kale shaqo kale un baa ka shaqeey jiray gaarigan ku shaqeey sharaxaad uma baahni su-aasheeda kale waxay tahay cabdicasiis abukar cabdicasiis ma taqaan abukar cabdicasiis haa habeenkii falku dhacay maku soo wacay ma xasuusta laakiin anigu waxaan ogaa adigaa wacay miya haa maxaa u sheegtay habeenkaas waxaan u sheegay inay arrinta saas u dhacday gurigaana arrinta sida u dhacdaan u sheegay waxaan dhahay xaaskayga waan jeclahay abuukarow adigu waa og tahay gabadha ehelkeedana way og yihiin weligii inaanu xumayn macalaa ehelkeeda un baan jeclahay marka saasi wax u dhaceen sidaas ha la ogaadaan iri okay luul allah u naxariistay uur bay lahayd soo maha haa caafimaadkeedu sidee ahaa maalmihii ugu dambeeyey caafimaadkeeda taam u ahaa alxamdulilah shaqada subaxii 12 aan isla aadi jirnay waana ka soo wada ruux jirnay okay waxaa jirtay gabar aad maqlaysa halkan ka markhaanti kacday maxkamadda horteeda isla markaana lagu magacaabo sihaam haddana inay joogto aan u malaynayo
waxay sheegtay habeenka jimcada ah oo dilku dhacay habeenkii ku beegnaa ee jimcada ahayd maalinka jimcada sabti soo galayso in uu muran ka dhacay guriga murankaas maxaa sababay ayada see ku ogaatay inuu muran ka dhacay guriga ayada kula joogtay mana la joogin ayada guriga ma wana la joogin ay ilmahana waa la weydiin karaa aniga xaaskayga ayada un baan habeenkaas muran miyaa dhacay habeenkaas markaan imaaday un buu muran ka dhacay oo isqabsanay cabitaanka u keenay daadisay barbariyay fiiri habeenka ma sheegayo fal ku dhacay waxaan sheegayaa habeenka fal ku dhacay habeenkii ku beegnaa ee ka dambeeyay la soo dhaafay habeenkaas habeenka ka horreeyay ma sheegaysaa jimcadii ka horreysay jimcadii ka horreeyay ha falka dhacay muxuu ka bilowday jimcada ka horreeyay falba ma dhicin adiga hadda waa dhageysanaysay gabar Siham la yiraahdaa guriga timi dagaal ka dhacay adiga iyo Lula diriray waxa ku dirirteen gabadha in la saaro gacan qaad baa sameysay arintaas maxaa ka jira ma diririn aniga xaaskayga waligeena gacan uma qaadin gabadhan horta gabar fidna wada waa ehelkeedana waa yaqaanaan gabadhan ayeedeed xataa waa ogtahay waxay tiri ninkii hore xaaskaaga ninkii hore gabadhan Lula qabi jilmaha u dhashay iyo xataa dhaxdooda waa isku dagaaleen gabadhan darteeda la isku dagaalay marka aniga waxaan dhahayo gabadhan wayna dhibtaan dhahay naga cel ayay waxay tiri marka dib dambe idinku kuma imaan su'aal kale weydiin halal su'aasha ku weydiinaya waxa weeye jinsaarka ama leetarka yaa ka qaadatay adna kama qaadan guriga jinsiga badan leetar badan waa buuxaan qaanada xaaskay ugu jiraan cuudadkii ku shidata cid ka qaadatay ma jirto miya may ani balwadna ma lihi qof wax dadkan kama qaadan markaad soo baxaysay ma jirta inaad biyaha furtay tuubada miiran ku fura ma lahayn albaabka ma sii xirtay markaad baxaysay may waa furnaa albaabka marqaantiyaashu shan marqaantiyo halkan la keenay waxay sheegayaan albaabka guriga in loo dhacay been miyay sheegayaan mise adar u sheegaya marqaantiyaashan been inay sheegayaan waxaan kugu cad aagshan lu watiya lagu leeyahay shidaal ku soo shabtay see ku cadeen dukaankii yaala oo shidaalka caagan ka gatay hadda shan laha mari mayno waxaan maraynaa xalali gudoomiye su'aal hadaa weydiiso xaq uu leeyahay inuu su'aashaas la weydiiyay inay been tahay inuu ka jawaabo xaq uu leeyahay gudoomiye su'aalana weydiin buu ka jawaabayaa waxaad sheegtay shanta markhaatiye maxkamadda la horkeena waxay wada sheegeen kulligood in albaabku xirnay inay been sheega ma been sheegay inaad dhahay su'aasha waa duubanta wuxuu yiri mina been sheegaan waxa ku cad wax aan caaga been ka sheegeen xaq uu leeyahay inuu iska difaaco okay maxkamaddu waa maasan tahay waxaan ku sheegayaa markhaantiyaasha qayb ka mid oo halkan la keenay waxay sheegeen gurigu gubanaya inuu xirnaa ay u daateen laba nin isla markaana ay ka fureen ka saareen ma ayaga been sheegay mise adaa been sheegay iyagoo afar ah ayaga been sheegay tira badnaashadu wax ma tarayso laakiin ninkii ogaay ilmahii soo badbaadiyay xaaskii soo badbaadiyay aniga adiga soo badbaadiyay oo isbitaalka geeyay miya aniga waa soo badbaadiyay banaankan keenay ilmahan ana soo xambaar korkiian ku soo qaaday banaankan keenay cid iga ogaal badan yaa taa mudane okay markii aad baasinka soo gadanaysay ama shidaalka aad soo gadanaysay dagaal baa ka horreeyay soma may dagaalka ma horreeyay laakiin ishadal qabsan baa ka horreeyay marxuumadda ma hadaaqaysay oo ma qaylinaysay markii dabku qabsaday aniga horaan kugu sheegay qolka jiifka anuu ku jiraan qayladeeda maqlaan ku dhah sidii unbaa ugu imaadaba dabkiina waan ka okay qolkaana soo gubtay markaa qolkan soo gubtay oo aad soo aaday qolkan kaleeto marxuumadda xagee joogtay markaa qolkii jiifka ayadu ku jirtaan ugu imaaday waxaan dhahay qolkaas waa soo gubay ogaaw kanna alaabtaada ka qaadaan dhahay inta alaabta carruurta xagee joogan markaa carruurta waa hurdaayeenba waa 4 saac iyo wax la jiray ahayd okay marka intii qolkii jiifka fadhiga ka soo baxday bay waxay soo aaday qolkii aad gubtay dabkii bay isku tuurtay saas miyaa kale ka wadaa aniga ayadu isku tuuraysaan arka kuma dhihin laakiin inay iga soo tagtaan kuwa cadeynayaa hal daqiiqo ka yarna gudaheeda qayladeeda aan ku maqlay ayadoo dab haystana ugu imaada qolkii aad soo gubtay markaad iska soo saartay iyada qolka jiifka ah oo sida cadayntaada ku cad muhiimka ku ah inaad gubtid sida aad sheegtay adigu maadan soo gubin waa iska soo baxay soo maaha markaa qaylada maqashay maxaan gubaa xaaskaygu qaylinaysa daa maqlay ugu imaada ayadoo gubanaysa ma gubitaan kale meesha yaal xaaskaagu taa guriga ka gubayso soo maaha naxariista aad u qabto markaa ii sheeg naxariis waan u qabaa waayo naxariistaan u qabilayn ayadan gubilay xaaskayga aniga guriga aanan gubay nin xanaaqanaan ahay alaabteeda nin igama dambeynaya irwaan gubay laakiin xaaskayga ma gubin mudane haddaan ba ogaalahay inay qolkaas galaydo anaaba u ogolaalahaynba walaalkay waxaad sheegtay inay naxariis ku haysay haddana waxaad sheegtay inaad rabtay inaad qolka bannaankaana gubto kan fadhigaana gubto
kan jiifkaana gubto maxay tahay noo sheeg naxariista ku haystay marxuumadda naxariista iyo taas way kala duwan yihiin mudane waayo maanta nin ragaan ahay xaaskayga wax kastaan u qabtay guriyaan dejiyey intii karaankayga waa bila maanta qof wax kama hagarado ilmahan waa la koriyaa aabaheed waa igula dardaarmay wuxuu yidhi xaaska gabadheeda waa xanaaq badantay waan ogahay laakiin ilmahan uu ku sabar uu yidhi ilmihii anoo wax kasta u qabanaya in lay dhaho nin odayaan keensanaa intaas bishii isiinayo maxay alaabta aan keenstan aan ku aroosaa ani intaas un baa ka xanaaqay okay caddayntaada waxaa ku sheegtay in aad soo gaday shidaal naafta soo gaday naaftadana lagu bilbili jiray meelaha uu ka soo baxo cayayaanka ama waxyaabaha mataqaanaa guriga mararka qaarkood ka soo bax darbiyeysa xaaskaaguna inay ku bilbili jirtay si cayayaanka ay ugu disho waxaad sheegtay iyadoo gacanta ku haysa shaqadaasna ku jirta inaad cuud shiday cuudkaasna uu gaaray sidaasna ay ku gubatay warkaan aan sheegay dhanba waa mala awaalba ma u sheegin baan caddayntaasaa lagaaga qoray suulkaagana saaran aniga been miya waa been gudoomiye aniga markiisa xaalada CID la keenay taliyaha ii imaaday sidii wax kuwa og yihiin baarahana waa joogaa waa la iga qoray okay walaalkay su-aasheeda ugu dambaysa mudane gudoomiye waa soo koobaya waa dheereeyey su-aasheeda ugu dambaysa ama labada su-aalood ugu dambeeya waxa weeye markii aad falka geysatay oo aad baxsatay oo suuqa xoolaha aaday oo aad fakatay oo aad gobol aaday intaasoo dhan miyaadan qaadan dareen ah haddii aadanba adigu gubin inaad intaas soo laabato ilay suuqa xoolaha dadkaagi iyo ehelkaagii baa jooga ma joogaan ehelka gabadha ehelka ma joogaan intaad suuqa xoolaha tagto maxaad waan u geli weyday u dhehi weyday war khatar anigu ma gubina saanaa dhacday oo aad qayb uga qaadan weyday gargaarka loo fidinayo aniga xaaskayga inaan gubin waa sheegay waayo seediga soo wacay waxaan u soo wacay waxay tahay nin ku kalsoonahay maanta oo aan saaxiibo ahayn gurigayga igu imaan jiray wahay su-aasha ugu dambaysa ma og tahay islaan uur leh inaanay nin guursan karin ilaa ay dhasho ha iyo maya taas niyadeeda ma soo gelinba waayo haddii soo geli lahayd su-aashaas ha iyo maya kaga jawaab allahu aclam ma uga jawaabi kari taas ma og tahay in islaan uur 2 bilooda leh ilaa ay ka dhasho aan nin kale guursan karin cilmigaas ma lahayn ustaad islaanta aad qabtay allah u xariistay waa ka jawaabay su'aal kale weydiin gudoomiye waa ka gudbaya su-aasha ugu dambeysana weydiinaya gudoomiye maxkamadda iyadoo raalli ah waxa ii sheegtaa islaantaada allah marxuumad duluul cabdicasiis allah u naxariisto aqoon dhanka diinta ah ma lahayd waa lahayd tabaan arda quraan ma dhigi jirtay taas nolosheeda hore warka ma hayo aniga laakiin intaan guursada ayadoo quraan dhigeeda ma arkin ciyaalka quraanka ma u marin jirtay ya ciyaalka quraanka ma u marin jirtay habeenkii ya waa aniga iyadu ha u mari jirtay maxkamadda maasanta سيد علي محكمة أيها وحكوا جديد وتنور سؤال مرن كم جرى إن دبك يسببتي سأديك على هذا هذا محكمة كورشكتي وقل أتكون جبتي كدبنا عدد سيدا أملين السكد وين نقطة سيدا محكمة هذا كورشكتي وحنا بقينا سؤال كويدية قل كأد جبتي محا ألعبه يعني qolkaas waxa ayaa la gudoomiye sariir joodari armaajo taale sariir joodari armaajo ha okay armaajadan maxay tahay waa armaajo oo midda irdeeda xirmaya ma aha midda wax la saarta ah armaajada alaabta jiifka may kamid tahay mise kamid ma waa adiga waa kamid tahay armaajo hore u taalay oo aan suuqa geeyay soo bedelay ahayd marka waa armaajooyinka kuwana waa la xiraa dharka la gistaa kuwana ay lama xiro waxa la saaraa sharaxadaas ma rabo armaajada aad sheegtay inay qolka taalay ma alaabta jiifkay kamid ahayd mise kamid maahay alaabta jiifkii kamid ah soo gado marka sariir iyo joodar iyo armaajo ayaan ha ujeedka aad u gubtay joodar iyo sariir iyo armaajo maxay gudoomiye waxay ahayd qof ibn aadamka horta shucuur iyo dareen uu leeyahay
waayo anoo hagar baxaya oo wax kasta sameynaya maxay ahayd waxa igu sababaan kuu sheegaa anoon rabin inaan hadalka kugu celiyo Ha. waxaan rabaa su-aasha meeshaan aan ula dan leeyahay inaad fahamtaan rabaa oo Sax. wadada dheereed aad ku laaban Haya. waxaad sheegtay in xanaaq uu galay dhacdada hadda ka soo sheekeynayso dhinaca su'aal ka weydiinayeen oo dadkuna dhegeysanayeen inaad dib ugu laabato ma rabo waxaan rabaa waxaad tiri in alaabtada gubtaan rabaa saasad dhahan soo ma alaabtaada gubay tiri inta qaada lahayd eraygaas xaaskiga igu tiri saasay kuu tiri soo ma Ha. alaabtada inaad gubataan rabto marka adiga ha alaabteeda inaan gubaba rabo Okay. guriga maxaa yiiloo kale guriga kulley aqal iyo jiifkaas fadhigaas waa yaalay waxyaabo kulley lama tiri karo waayo si kalan aan ku weydiina Haya. guriga fadhi ma yaala ha qol gaar oo fadhiyaa yaal soo ma ha qol fadhiyaa jira okay qol jiifana waa jira soo ma waa sax adaa soo geda soo ma jiifka ee fadhiga ha luul markaad qolkan sariirta iyo joodariga iyo armaajadu taallo aad dibka kusoo qabanaysa xaggee joogto ayadu qolkee way joogto qolka ayadu way maqaneed markaan kan gubay kadib qolka jiifka inaan guba rabo ayadu ku jirtaan ugu tegay qolka jiifka markaas waxaan yidhi luuley ani qolkaas waa soo gubay ogaaw kan waa gubaa wixii kaa yaal kala bax waa mahadsantahay halkaana waxaan rabaa inaad ku celiso jawaabtaada mar kale waxaad sheegtay qol inaad gubto dibka marka hore ka bilowday ha qolkaas waxay la sariir joodari iyo armaajo waa sax xaggee joogta luul marka dibkan aad qolka ku qabanayso kulley qolka kuma jira laakiin qolka jiifkay ku jirtay waayo markaan kan ka soo tegay qolka jiifka ayadu ku jirtaan ugu imaaday guddoomiye ujeedkaagu marka muxuu ahaa adiga inaad wax gubto maxaa ujeedka ka leed maxaa ujeedkayga waxaan idhi luuley anoo wax kasta kuu sameeyey oo maxay ahayd kuu hagarla jimcadii ka horreeyay guriga aabeeda imaanay familkeeda dhana ilmaheeda dhana soo qaaday gabadha familkeeda waa ogyihiin wax kastaan u sameeyaa ilmihii hadda maalin dhexdaasa la keenay ninkii falka geystay ay dhahayeen maalmo ka horna aabbay dhahayeen waayo wax kastaan u sameynayay jimcadii kasii horreeyay jasiiraan geeyey su-aashaas kuma weydiin baddaan geeyey macnaha waxaan kuu sheegaa guddoomiye ujeedka gubitaanka qolkan rabaa bis dhacdadaas kale iyo wixii Ujeedka maxkamad waa fahamtay waxaas oo dhan okay ujeedka gubitaanka wuxuu ahaay anoo wax kasta huray in maxay ahayd abaal la iga hin oo maanta la dhahay nin kale keena oday oo bishii $600 isiinayo ilmeyga aabbo u noqonayo nin ii noqonayo ifur habeenkii dhan aan baryayay ay tiri hooyadii xaaraan ay ku dhashay addaada ifurin caawa nabad kuma jiifanaysa okay maadaama nin raga aad tahay soomaaliduna ay yiraahdaan mahmaahda soomaalida ay aheeday nin raga iyo xaaskiisa colna maaha nabadna maaha ha problemka familigana mar walba uu dhaco haddii sidaas lagu yiri inaad iska baxdo adiga adoon dhib geysanoon dad wax gubin inaad iska baxdo oo berri u soo laabato muxuu soo dhicin guddoomiye horta saa sheegtay nin naag colna ma aha nabadna ma aha dhowr mar waa isqabsanay waxaas waxba kama soo qaadayn xataa subaxii markaan baxayay hadalle iga daba tuurtay kulul uma jawaabin aniga dabeecaddeeda waxay tahay xanaaqo inta badan dad lama hadlo marka laakiin waxa aniga qalbigayga gubay oo igu kalif falkan inaan qolkaas gubo waxay tahay in la dhahay nin kale odayaan keensana bishii $600 isiinayo anina nin ii noqonayo ilmahayna aabbo u noqonayo ani horta intaasaa ka kulaaday intaasaana aan ka xanaaqay wax hadal kale maanta day imaanayday dhiileed ifur waxaasba ma dhaceenba intaas ma iskalma soo gaarneen okay sariirta iyo joodarigu laba meel may kala yaaleen mise hal meel is yaaleen sariirtii joodari qolka gubanaya soo ma ha hal meel is yaaleen ha armaajada ma gubata waa gubatay dabcan ha saa umalaynayo ma malayna ma soo hogtaa waa gubatay ha shidaalka imise shay saddexdan shay aad sheegtay imise shidaalka ku bilbisha joodariga sariirta iyo armaajada ku bilbil waa gubay intaas waa ha jantisigar xagee ka soo qaad jansigar wuxuu saaran yahay qayb guriga markii la soo galo qolka ilmaha irida ku dhaganaa jirto meeshaas jansigar dhowr xabana waa saaran yihiin xaaskii mar walba saari jirtay cuudadkii ku shidi jirtay waana la soo fiiri karaa hadii la rabo meeshaas unbaa ka soo qaatay
joodari iyo sariir armaajada maxaa ku jiray armaajada faaruq ah markaas wax ma saarneen waxba kuma jiro ها okay واي wax la saartay inta badan ma lahayn dhulka qolka dhulkiisa ma shidaalku ma ku halaab طبعا muu tala gashay adiga muu tala gashay ma ugu talagelin gudoomiye waayo dhul maxaan ka gubaa aniga okay Said Ali oo sariir iyo joodari dib loogu tala galay in joodari iyo sariir maaragtay lagu inta shidaal lagu shubo inuu gubto dib intaas la ego qof dhan gubi kara ma sameyn karaan gudoomiye hortaas Allahu a'lam laakiin may ogaalkaaga adiga qiyaastaada maskaxaad leedahay qof weyn aad tahay hal sariir iyo hal joodari iyo armaajo oo adiga markii aad ka soo baxday oo dibku una wada qabsanin waqtiga u dhaxeeya inaad sheegtaa hal daqiiqo waxa soo dhaxeeyaan qof dhan intuu gubo jirkeeda intaas ma ku sameyn karaa yani maskaxdaada inta aad ka ogtahay wax fahmi karto معقول سايس leeyahay waayo gudoomiye markaan soo baxay qolkaan imaaday xaaskeyga joodarigii inta ka yaalo geeskan yaalo ayadiina meesha dhaxda jiifto oo rafanaysa ugu imaaday dabcan gudoomiye joodar gees uu yaalo dabcan geeskaas uu ka yaalay sida loo sawir dib loo raac wala arki karaa ayadan dhaxdii taalay meesha ku gubanaysay dhulka isku gadinaysay gudoomiye macquul waayo joodarigan shidaal aan ku shubay macala sariirtan ku bilbilay أنا waxaan niyadeyda si aan isleeyahay qolkaas horta xaaskeyga waxay u gashaan isleeyahay waa inay xanaaqsaneed ayadoo xanaaqsan inay damiso ay isku dayday aniga saan isleeyahay waayo qof maanta niyadiisa maskaxdiisa joogto qol gubana intuu galo wuxuu ka doonayo ma aqaan laakiin saan niyadeyda isleeyahay inay damiso ay ugu tala gashaan isleeyahay okay adiga gacantaad ka gubatay ha maxaa ka gub markii aan imaaday soo orda qeyladeeda maqlay qolka ayuu dhex jiifta aan imaaday ayadii gubanaysa gudoomiye ma fiirsan karaa mar dhar hadday tahay waa ka jeexay intii gubanaysaan ka reebay intii karankeyga waqtiga inta xataa ku foorarsanay sanki waa ka gubtay labadan dhinac dhagaha waa ka gubtay gacantan kale waa ka gubtay waqtiga oo qeyladeeda aad maqashay iyo waqtiga adiga aad soo aaday intee ilaa u dhaxaysay hal daqiiqo ka yar saa isleeyahay waayo inta teleefanadii wixii qaadanay ayadan waa iga soo tagtay wax yar kadib qeyladeeda maqlabo gacmaha shidaal ma kaaga halaab ma iiga halaabin shidaal ma iiga halaabin ayadii dharkan ka jeexay wixii aan ka bixinayo waa ayadu gubanaysa uu imaaday meesha oo dhulka rafanayda intii aan ka daminay qolki jiifka iyo qolki fadhiga midna ma gubin marka ma gubin waayo qaba u guuma lahaba aniga inaan gubar rabo qeyladeedii aan maqlo Soomaha gudoomiye sidee ugu sii jira hadana daa imaaday anniidid wuxuu ahaay ka fadhiga iyo jiifka labadaba inaan gubo macala kan laakiin xaaskeyga qeylinaysa daa imaaday ayadii gubanaysa arkay kulli xanaaqii hore yahay waa iga baabay okay hadalkaaga waxa kamid aheeday in aad alaabtaada gubanayso sax alaabtaadu gurigay dhex taala gurigana adiga iska ma lahayn alaabta markaad gubayso guriga guba ma lahayn gudoomiye nin xanaaqsan ahay ani waxaas niyadeeda ku soo dhacsan laakiin niyadeeda waxa ku programsan kaliya alaaba adig keentay nin kaaga dambeeynin intaas un niyadeeda ku programsan laakiin gurigan iyo wax ma u jeedin marka waxaan dhacay dhacdadaanba xanaaqaaga darteed ma xasuusan wax dhac maya alaabta markaan gubaayay niyadeeda kuma soo dhicin gurigaana guba kara ama gurigaana dhib gaara niyadeeda kuma soo dhicin waayo waa xanaaqsanaay alaabtii un baa gubay guriga hadda saan u maleynayo waayo aniga warka ma hayo laakiin saas uma gubansay ilata waayo hal qol un buu ahay wax gubtay okay alaabtaada markaad gubanayso alaabta adaash waxaad sheegtay in adiga la heeday laakiin guriga ma lahaynin xisaabta ma ku darsatay in gurigan dab qabsan karo ma ku darsan daa ku darsalahay ma gubi lahayn Soomaa gabadha inay dhimato goorma maqashay gabadha inay dhimatay markii inay dhimataan maqalay waa maalintii hadda rag qaraabadeeda u imaanayay askara meel walba in laga raadinayay kulli waa dareemay rag qaraabadeeda askara u imaaday nimaya waxaan dhahay saasa wax u jiraan waa maqasheen ninkii dhibka geystana waa aniga kulli waxaan dhahay intii aniga maxay ahayd dhibka la gaarsiin lahay adinkii qabta adinkii maxkamadda geeyaan adinkii dawladda geeyay sidii la igu soo waday muqdisho la ii keenay maxkamadan la ii keenay
waxaa la sheegay xaaskaaga inay uur lahayd uur inta in laga helay uur horta habeenkaas habeen ka horreeyay guddoomiyey uurka aan ogaanay waayo farmashi gurigaa deganahay laamiga farmashiga ku yaala xaaskayga waa ii dirtay waxay tiri caagaas iiga soo gad oo maxay uurka lagu baaro waa u soo gaday weliba waxay tiri midna $0.5 la gadaa midna $1 la gadaa ka $1 ii keen waa u keenay habeenkaas un bay ii sheegtay habeenka dhacdada dhacayso habeen ka horreeyay un bay ii sheegtay inuu uur leedahay su-aasha kale waxay tahay waxaad sheegtay in habeenkii marka aad timiday dagaal meesha ku qabsaday macnaha guriga buuqii isku dhici oo meesha ka dhacay noloshiina intaa isqabteen xilli kugu horreeyay miya oo buuq family oo dhaca ma aha horta waxyaabo yar yar guddoomiye waa la isku qabsadaa oo naagtaada qabtid adigu isla socotay naag kala daa fiirida xataa habeenkii kugu xanaaqay maxaa u fiirida lagu leeyahay marka si walba dhowr mar waa isqabsanay waxyaabo waa isku qabsanay laakiin heer intaan xanaaq la eg ma soo gaarsin maxaa la jirta maxaa ku xal jirta waa barbaryi jiray way digi jirtay sometimes waa wadi jiray adiga magaalada meelo ka mid ah xeebtoo kale ama meelo kale kii jiray jimcada aan dhibka dhacayo jimcadii ka horreeyay mid ka sii horreeyay xataa jasiiran geeyay ayaga iyo caruurta ayadii caruurta iyo dhammaan marka kulley qaab walba aan isku dayo inaa ku sabi jiray laakiin markaan sabitaan waayo waa xanaaqay intaas ay tiri baa ka guftay aniga guddoomiye سنة سيد علي ها قدامي marka aad bixisay oo shidaalka doonanaysa dhar maxawad adiga macawis oo madow ah iyo shaatiga fanaanada camal aan wata shaatiyadan labada guluus kor leh fanaanada camal ah waxaad sheegtay inaad aad u xanaaqsaneed oo aad ka xanaaqday ha ma laga yaabaa qolka aad gubtay inay ku jirtay xanaaqaaguna oonu ka tambadiyo oo aadan warkayn oo xaaskii qolkii ku jirtaa ha may gudoomiye waayo ana hubo qolkii jiifkan ugu tagay markaas waxaan dhahay xataa ana alaabtaada ma rabiyaan alaabtii intaan leeyahay gubana alaabtaada kala baxaan qolkan intaas markaa yiri iga soo tagtay wax yar kadibna qeylideena maqla ana daa ogaalahay qolkan inay galeydo ana buu ogolaadeen gudoomiye inay iga soo tagto laakiin niyadeeda kulay ma ku sii mashquulin baayada meel aadiisana ma ogeyn هاي اسكبرس